اوكي ان كمشروع ahaan maadaama arintaas hadda arin waaqac ah oo dadka dhan haysato wadada loo bedeli lahay mise hadahno mashruuc umga thaqaafi hadan dhahno oo wax bedel ahaan yani wada maanta wax la asaaso oo lagu bedeli karo min naxay qof walba magtay familka naftigiis labada isqabto maanta isguursatay saameyn ku leeyihiin mujtamacaan intaas milyan ka kooban musaabintii فأنت سأيكو كله أو سامين بدن كليهين أو إعلام كنا جوا ميدا هنا جوا أو علماء دقائق مثل قفين ترى مثل دولة دقائق حكومات كرا كسيحة من الناحية الإعلامية سامين بدن سو ممكن مستقبل كأو بس أنت إنسان صوص أقول لك ده هذا بابا سنة بس كيف كرهان رقم فرق بدن جيتا أو دود نج ماته محل ثقافات داخلة أنا هذا كل قنو ها أنا موقفك هذا إسك عامي إسك هذا سياسي هذا طالب علم هذا نو ذا هذا وأن سامين مالي ودريميسا ثقافة داخل إنك جوته سيدا وبدلك هنا من ناحية الإعلام درات ما لنا حن في سنة تي في يعني في هنا فكرتونا أكيد كرتون ك بدهنا كيسمو هذا أدونك حق بدن كرتون كان وسوا هجاجو وضمن قاعدة لقسوا هجاجو الدول الغربية قاعدة غربتك إلهم لك وماليشيا مس إندونيسيا نوعها ومسلمين يوحوا كجوتي فدين الإسلام كأود بدن أساس مثلاً لكن أسماء ذا يو من ناحية اللبس كي وحلا مدة أهان فكرتون وحوها هاي عصري ولكن وحيال كقال تقريبا أهان أدري مزيد ماشي وحكة أساسا ثقافة فبدولون يفرق بدن مسلمين تطال أهان بدن كاس 8 سنة ويك جيفين 50 سنة عمل كور فهذا إلا هذا كسومال أهم ما حاجة بدي لك هنا وعنك hortaal in la ogaado waa muhiim qof hadda waqtigan joogo casrigan hadda nool iclaam inuu ku xiroobo horta ka suugo iclaamka laga ma xiroobi karo hadda tira qofka dadka iclaamkan ka xoreynayana macquul gal ma juhdigu wuxuu noqonayaa juhdi iska aan macna ku dhisnayn oo marka dambana natiijo xumo ku dhamaanayo iclaamka mashaakisha uu keenayo ama dhibaatooyinka anaga uu noo keenayo ninka keenay iyo ninka loo keenay marar badan sidii leeyihiin qoliyaha waxa ka qada diyaariyo waxay daxiyada ku badan tahay ninka loo keenay sax laana ninka loo keenay inta badan waxa loo keenay waxa weeyo waxa la sameeynaa ama tadwiirka lagu sameeynaa ma ahan ثقافة isaga uu aaminsan ama dhaqankaas min khilaal wax laga keenay ma waa thaqaafa mustawrida naam oo meel kale laga keenay kadib waxa weeye ibtilaac ku sameeynaya isagoo garanaynin waxay tahay ma yaqaano laga yaabo xataa diyaanadiisa iyo diintiisa dhan xataa inay ku sameynayso shafid inay ku sameynayso kadib laakiin uu iska qaadanaya uu iska cabaya idan hadii laakiin la yiraahdo maxaa lagu sameyn karaa wallahi أنا كل واحد نسديه كرا ضدك إن الغصة سميه توعية ثقافية أما كيفية التعامل معها إن لقى سميه وعي قلين فرق بدن ضدك اللي برا مهارات كل صيو أيوة تعامل الهاين سيدا عم بنديه كرا أما لغو حلين كرا سؤال تعالوا حتى يا قمنا عشان قداس توعية قفك سميه دون يا واي توعية هرتا قفل برتو هو مسؤول نبي حديث كي نبي عليه الصلاة والسلام في البخاري كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته حديث كاس واد قرن حديث كاس wuxuu ku tusinayaa qof walba inuu maartay mas'uul yahay qof walba duu mas'uul yahay macnaha waxa laga doonayaa qof walba dhinaciisa inuu ka indilaaqo haddii saas tahay la rabo qof walba mas'uuliyad inuu qaato inaan qof kale mas'uuliyad lagu haleyn oo qof walba uu isku dayo asaga inuu shaqadani uu qumbi karo gaar ahaan dadka maartay imkaaniyaadka haysto dadka imkaaniyaadka mooda haystaan سايش موضة هايستان هذا وسيلة waa haysataa kaamirooyinka waa haysataa laakiin ana shakhsiyan ma haysto qof walba imkaaniyaadka ma haysto qofkii imkaaniyaadka heli kara ama wasaa'ish heli karo inuu ku dhaqaaqo tabartiisa inuu ku dhaqaaqo طبعا مسؤول ولا وذي لكن مسؤوليته الله ما سنه dadku حسب الظروف way ku kala duwan yihiin ma dhihi karnaa Soomaalida inta haysato imkaaniyaadka mise xukuumadka naftikiis walaanu meesha dawlad iyo waxa Allah kuma hayno maanta hadda ma dhihi karno muassasa islaamiya even hatta hadaan xisaabta ku dagno muassasaadka oo maanta min naaxid diin ahaan hogaamiso Soomaalida mise min naaxid tawbawi ahaan laanu diinta iyo cilmiga total ahaan waa hal meel ka duganin mugtahay ma ka taliyaan ثقافة يتوبوي أهانك أو مجتمع سوماليا مش أوسو دو حتى تمك سنة صوص على كم تليان وها ماشي حلقة استاجن يدمه الشخصي أهان يمادي أهان أي كتلناين
ما تاس إن أنا كده واقع لأنه رأي قلدنا ولا قلنا كذا لكن واحد أنا هذا أوجد شخصي أهان كعمر أهان وأنت أصلا أوجده فمجهد يوافق يصير أي قاس يا عمرو إن وصح وهذا مرة قرنا وصار شيء قف كإمكانية ده الله واي نين إمكانيات كايستو ينا وحبك عن تكوين نعم أيضا مسؤولية دلوقتي آه نينك إمكانيات كايستي مصالح العام كايد وحكا قال من نقطي شخصي قيس مصالح الشخصي قاعد إيه خاص قاعد صح تاوجرته وظاهرتها جوا واحد لقينا الله بكرة هديتين قليها مؤسساتك قليها دقالها هيستي شركاتها هيستو كوا حتى الدولة ده جوجو كل اسمه صوت ضد المجتمع الصومالي ده هندي واحد ولناي أمان كجد وناي مجتمعات كلا أم أدون كلا كجد وناي نك الصومالي طبيعات كيسة وحكوب بدن تقليد مصالح الخاص مربى إنه مصالح الخاص كأو ضوء أرضه نعم وطبيعات قفل بو الصومالي أنت بدن لقيه لواي وحلقة جيتها كهو قيس قبل كدوا وحيد هذه ثقافة ده محل معطاء وحل هاي قفك إنه قفك كلا وحصي أو أقول هذا أو قاعد على هذا وأناني واي ممكن هي ليست مدة شيكتي وشيء هذه أد مهم أهوالا تاوكه لكن سياسة علماء نفسي كود مسدتك محل ما أنتم ده قامين ينبو فدو كدر يوحك له هذاك تلناين قومي هذا قبل ما كسر عمود وحقاوت بالضبط يعني هل كان إنه قاعدة مارت سننك إلهي سبحانه وتعالى وكون كان كمان ملاك سننك إلهي سبحانه وتعالى كون كمان ملاك حكم القرآن كانوا تلمام مايو وشهرها يو ومد مركل ربنا وحلا جبدله صح أما التغيير اللي قصم بيه جهد بيه وباهن تاي صح تضحية وباهن تاي نعم قف فكر كي صوري وباهن تاي نعم قف إن مال كي صوري وباهن تاي قف أسجودي وباهن تاي haddii taa meesha la waayo oo tadxiyadii qofkii uu huri waayo taqyiir soo ku imaado way iska adkaanaysaa yani qofka hadduu iska seexdo oo maaragtay uu intuu iska fariisto uu yidhaahdo wallaahi in isbedelo waa ficlaan lahayd waan jeclaan lahaa ama uun min darafin khafiyan uu ka hadlo haddii waxa weeyo si natiijo lagu gaaro way adag tahay marka waxaa loo baahan yahay ma ahan hadda majaalka iclaamiga bas aan ummadda soomaalida oo dhan waxay u baahan tahay tadxiya u baahan tahay tadxiya u baahan tahay hadday tahay xagga siyaasiga hadday tahay xagga tacliimiga hadday tahay xagga maaragtay ijtimaaciga hadday tahay haddayna ummadda soomaaliyeed aysan helin tadxiyo rasmi ah oo maaragtay lagu bedelahaya hawsheeda lagu bedelaya haddaanan la helin dad rasmi ah oo si dhab ah ugu istaago waqtigooda iyo fikirkooda iyo xoolada gelin aan la helin si ay ku badbaado ama meesha dil ugu jirto ay uga baxdo way iska adkaanaysaa marka taasna waxa hadda anaga iska sheegin dibaacadkanaga ma ahna waa shay maaragtay إن تاريخي أوي تثبت التاريخ. نعم. أوكي مؤسس ما أنت ملا أساسك من ناحية دانا صناعة الثقافة بانت هدان جو أنسونو إن ثقافة سوماليا مثلا رقنك سوماليا أو دين أهانتي سوماليا ما أهانتا لأنه رقنك يو دين تي مكله رقن وحال رقن ما قاعد تحون كله ترى أنت كلا لكن يدين تو إسوادان ما أنت قابك لو أساس لهاي مؤسسات مستقلة أو مضح بنان ودين أهان إلا هذا كم جو مؤسس ديني مضح بنان أود له maanta dantii maxaa lahaa oo islaamka iyo muslimiinta bakatelinayso gacan lagu mahaayo wax bagasha ahaato waxa manahij iskuulka ka socdo meediyaha thaqaafa ahaata sabab keentay inay intishaag noqoto maxaa la waxa faafo waxa xumaan kali inay ummadda ka faafo dhaleegta fiirsadani waxa qof maanta xataa min nahay cilmi dunyawi baht ka talina xataa ma jirto wax macaan lahayn ka talan diini hogta meel iska dhig ida qabeel iska dhig wax maanta cilmi ahaan ka talinay Soomaalida boqolkiiba 10 ma hayna xataa fa asaaska qaabkee oo asaasi kana qaabkee maanta aan wax badan ka duwi karnaa ummadda Soomaalida dadkeena mujtamaceena naam dadka haday tihiin ala mustawa al-afraad wal jamaacaat khaasatan dadka imkaaniyaadka heli karo dadka fikirka hayo waxay u baahan yihiin inay ku fakaraan waxaan ay qabanayaan ama ummadda ay rabaan inay u qabtaan naam koow horta waa in la fiiriyo waxaan teelag ummaddu soo kordhinaya horta waa in masaalixda khaaska xagga laga geeyo oo kadib horta marka hore aan iskugu imaano masaalix العام markaan iskugu imaano waxaynu eegaynaa waxani haddaan ku dhaqaaqano qaab intee leeg buu maartay wax natiijo intee leeg baa ka imaan karto naam مثلا shaygan la qabanayo wuxuu u baahan yahay manhajiyo waadixa منهجية منضبطة واضحة وباهية حدوث المنهجية وسنكون سعنين وحي فوضى النقطة وحاولوا
natiijo laga meelayo نعم hadda midna tusaale ku siinaya oo kale tusaale yar baan ku siinayaa ummad Soomaaliyeed xagga mustawiga diiniga ama dhinaca majaalka diiniga marka la eego ها wadaado badan baa jiro dad صح badan oo ducaada baa jiro نعم dad badan oo dalatul cilmiga jiro ها noocan ma dacwada hadda xoogaha ku yara imaado nuqsaan iyo khalal ku yara imaado laakiin sidii waagi hore la ahaa maartay qabla aqdayn sidii la ahaa lama aho oo dadkii maartay xoogaha wacyigooda thaqaafiga ama diiniga ah اوكو xoogaha اوكو wuu siyar bedela laakiin haddana jawaanibtan nuqsaanka ee ku jira arkaysa waxa weeye waxa ka maqan dhinacii manhajiyada ahayd baa ka maqan dhinaca manhajiyada macna ma jiro ru'ya waadixa oo ndigsanayno oo ku socono iyo wadadii aan u mari lahayn midna ma jiraan صح mashruuceena marka wuxuu ku soo gabagabay almawaacid faqat ها almawaacid mawaaciduna inta badan ummaddu waa iska shay caadifi ah wey midna wadaadka masaajidka uu ka istaagayaa xoogaa waa la yiri ooy haddana marka masaajid ilinka laga baxa u dambayso ayaantan intaas ayta oo la waysiinaya buu ninka waxa taana waa hadda waxaad wadaa xoogaa dacfi baa ku jiro afagta kalimo oo wadaadka haayo Facebook iyo wuxuu daayaa maxaa la YouTube ها marka waa in mashaariicdan diiniga ee la wado waa in loo bajiro mashaariic mundabida oo manhajiyada waa in loo bedelo wixii hadaysan manhajiyo lahayn waa lagu rafaadayaa wixina fooday noqonayaan kadibna adiga xaggad ka muxaadarin ana xaggan ka muxaadarin ana xaggan ka maraxna ka waxa loo baahan marka tawjiihu daaqa loo baahan tawjiihu daaqa hadaynan helno manhajiyo saxan aan u marno waxaan is dhihi karaa waa awood in hal meel la aadiyo ها waxaan is dhihi karaa waxa ka imaanayo natiijo fiican baa laga helayaa baan is leeyahay marka taas hadaan la helin ma garanayo sida ay wax ku socon karaan ma garan karo ma taa waxa waa xil dadka dhan saagan waaye ها qaasidiina dadkiina tawbawiya ah maanta inaad maxaa la dhahaa waxaan fiicnaan lahayd wax toosan inaad isku imaatiin oo fikirka toosan bisa isbuucii hal jeer xataa wax un inaad qabatiin oo loo jeedo sidaasaa fiicneed qaasatan jiilkaada soo baxay oo qowbaha wilba ku kogaayo markano dhalinyartaada soo bixiso oo waddanbaa qowbaha ku kogaayo iyo wax lamid ah waxyaala faga badan si aad u fiirisid aad arkaysaa meesha inuu ka socdo oo waxaan asima ahayne uwadkiis inuu adhuti waxa u keenaya maxaa lahaa cadam intimaa ninkan inuu meel tigiigsanin boo yani dhaqan Soomaali ahaan Soomaaliya afka ka laakiin dhaqankii islaamka iyo dhaqankii Soomaaliga ahaan meesha inuu kasii baxayo sidoo waalid ku socda aragtid yani qof walba maanta wuu saameynaa wuxuu asi ku dhaqaaqo mise ku dhaqmo asoo saameynaa waxuu saameynaa iyo caguugtiisu saameynaa caguugta uu yahay saameynaa fa maanta aragtid waxa magaalada yaalo soo yani waad maqaa ku xumaanaysaa taana waxay la tahay ani yani ma sax waay in dadkii waa hadayta kalimadan soo sheegay way oo in dadkii caadaadkeeda dhaqankooda laga qabto intimaaga inuu yaraado waxa keenay waxa weeyo wixii intimaaga qofka inuu helo ka qayb qaadan lahaa meesha laga saaro ninkani dhalasho ahaan Soomaali uu ku tirsan yahay cirqi ahaan marka la fiiriyo waa nin Soomaali ah laakiin maskaxda iyo fikirka ku rakiban fikir Soomaali ah maaha waa fikir meel kale ka imaaday way fikirkaas marka meelaha kale ka imaadeen waxa weeye rag baa ka taliyay inay fikirka ay ka bedeshaan oo motor kale ku saartaan ficilna way ku saarteen adiga marka anaga ka Soomaali ahaan ama ka muslimiin ahaan inaan ku noolaano nadariyatul mu'amara sax ma aha لأن هذا حاجة إسكان ولا نظرية المؤامرة أنا بحاول قف كأنه يرهده والله وأنا أقول له سودوله كدمنه إسديب لأن قف كدون نظرية المؤامرة كله على الله وإسديبي قف إسديبين هدي اللي جمسوا هيو إنه يسبدل سماء مش إنه ما هذا أصلا اللي جمسوا هيو مركا هدي نظرية المؤامرة وين هرتك حلونا وصح وجهتها ومديدين واقعين وجهتها مؤامرة وجهتها مؤامرة محنكرة ذا يعني اقتصادية جرته مؤامرة فكرية جرته مؤامرة مارتي إن عقدي هجرت وجهتها وما كديدي إنه واقع هو شيء واقع ولا ما ينكري كرو نعم. مصدور في الكتب وما كديدي إنه لكن نمكن مؤامرة كوسي معدين وين المؤامرة صمست إن لكن سديبتين معها مركوا إن كحرونو إن كنا لانو نظرية مؤامرة وين كون نك فكر كان كيني أصابه أساليب أديك سنة وين أنا كان أساليب تان أديك سنة وين أنا أساليب أنا دراسينا وين أنا مشكلة أنت بدل ما هيستوعين ninka Soomaaliga hada meelan nool haduu damcaha tiro meel wax ka bilaabo wadamo meel wax ka bilaabo ma garanay wada hayr jirto way dhan walbaana ana wixii waa wax hore gadaal ka go'an daraasan ma jirto asbaab lama baarin meel la garanayo jawaanib dhacf lama garanayo jawaanib alquwa lama yaqaano taasna hadii waa shay ka dhashay burburka aan burburnay soddonka sano aan burbursanayn inhiyaaraadkii maartay tacliimiga ahay oo dhan baaba'ay waxyaabihii lagu ogaan lahaa jawaanibta maartay dacfiga ku jira iyo dadka soo saari lahaa wixii dhan baa isla baabay oo isla burburay
marka taasna waa mushkilo ayadana maartay ka qayb qaadanaysaan is leeyahay in qofka uu meel wax ka bilaabo uu garan waayaba xukuumad ahaan leana mashaakishu lama daraasin karo lama cilaajin karo ilaa asbaabta la ogaado dee marka mas-uuliyad saan soo ma xukuumaadka oo Soomaalida ah ma mas-uuliyad la saaray kaga miya mise waa wax mujtamac laftigiisa lagu eedeynay yani xukuumaadka ma lagu eedeynaa mise mujtamac lagu eedeynaa يا عمر ورت ضدك بني آدم كأنت بند بيعاد إسكليين بس كجرتوا إلقاء الله مع الآخرين نعم إن المرة اللي ضدك كلام لا إذا أنا كدل طورنا طبيعي إسك طبيعي واحد نعم أو شيء من اللي دي كروا طبيعة البشر بس كيبضن هوش أيضا هذا يا إسكاله وسؤال مرة إسكوين والله هذا سجود هانا درتا ما دام أم بربرني الدولة dhihi karo maanta hawsha ayada way gabtay oo Soomaaliya ka jirtay ma aysan jirin inta yar hadda soo socoto ayaga tirkoodu iska ilaahay iska garanayo naam wax ka horreeyay ma jiro 30 sano burbursan warka dhimaan 30 sano burbursanay dawladda day burburtay hawlaha hadda aan ka hadlayna inta badan waxyaabaha qaban kara ee shaqooyinka u qumi kara waa mu'asasad xukuumiye inay qabataan mu'asasad xukuumiye waa mu'asasadka xukuumiye hadii meesha laga waayay Soomaaliya markay burburtay ee dawladdu ay ka burburtay marar badan waxyaabo badan oo qabsadeen baa jiro ay inta isku tashadeen ay dib u yara amaamadeen juutigooda dadon haba yaraado inaan marka intaan Soomaaliya mu'asasaadka ama shirkadaadka ama dadka wadaadaha iyo dadka ummadda horjoogaha oo ah inta ay dib ay isku laabtaan ay hawsha ayda daraasad ay ku sameeyaan oo ay ka qayb qaataan kumaysan guuleysan oo ay ku guul dareysteen dabcan dhaqaale la'aan baa jirto balaga dadka ku inay isdhahaan dhaqaale la'aan noocan ma wajiri kartaa laakiin waxaa inta badan ragnaa dhaqaale badan oo baxo laakiin wujuh aan munaasab ahayn ku baxo ama masaalix marka la eego laga fiican yahay baahidooda markaas ay taaganeen ama baahi ka badan loo qabo oo baahida badneed aan lagu bixinin laakiin baahi yar aan markaas aan ma tax soo kordhinin مثلا hadaan si kale u dhigo kale tusaale fiican inta bixiyo kale مثلا إلا هذا مثلا أنا قاعد أنقبته مؤتمر ديني أنا أنقبته العقد بدنا أنكو بحي صح Soomaali maray u baahnayd ba jirto waayihii la soo qaxay iyo 90yadii iyo baahidii mid ay jirtay waxyaabaha مثلا mu'tamaraadka iyo wixii la midka ah waan u baahnayn laakiin hadda hadaan dhaho Islii ama Nairobi aan ku qabanayaa mu'tamar intaas lacag ku bixinaya mantiq ma aha يعني هذا باهيدا ما تاجنا واي جرتي بجرت لعقتان marka hadda aan meeshan ku bixinayno waa iska tusaale aan jihadan ku bixinayno waxa jirta jihooyin kale kaga haboon oo u baahan in lagu bixiyo مثلا نيروبي او kale Islii oo kale hadaan u soo laabto oo kale طيب نعم يعني قضيه ما خصوصا oo kale مثلا العسوف يعني إني dadka inay guurki ay gursan waayeen oo kale asbaabta qayb qaadanaysa waxa kamid in wax ku gursan bay leeyihiin inta hadda مثلا aad 10 milyan ama 5 milyan aad ku bixinayso mu'tamar aad ku bixinayso soo kama fiicna inaad 10 gabdhood iyo 10 wiil isku guuriso صح inaad مثلا عمر oo kale ama qof kale oo hawsha u qalmi karo mahaarada ilaa inaad ku tiraahdo orniyo daahiradana jirto dhibaatana jirto qarash yaran ku sinayay baxthi research iga soo sameey soo kama qiimo badno صحيح hadhow aniga waxaan awoodaa markaan adiga aad ii soo bixiso researchka ii soo sameeyay baxtiga siro kooban ii soo sameeyay hadhow markaan aniga rabo inaan barnaamijka wax ka qabto meelan ka indilaaqan helaya asbaabtu waan fahmi karaa aasaartu waan heli karaa yani waxay noqonayaan wax meel laga bilaabo leeyahay noqonayaan marka mushkilada ugu weyn haysato waxa weeye tawjiihi maaliga ah iyo tawjiihi fikriga ah meesha loogu talagalay marar badan lama aadinayo meel qaldana la aadinayo waxa keenay in meel qaldan la aadiyana maxaa weeyo تغليب المصالح الخاصة على المصالح العامة هي dadkii oo ayaga laftirkooda shaqadan ay ku jiraan mahaarad badan aan u lahayn waa iska xoogsato waa dhaqan Soomaali lagu yaqaan aad iyo aad marka taasna waa dhibaato jirto way mas'alada hadda soo gogobeyno mawaahibta oo la dilo adiga cunugeega ha ahaado mas qof weyn ahaado maskaxdiisa in la dilo fikirka la imaado mise mawhabadii la imaado مواهبتنا وفكر مثلا يعني talent أهانك وحول إماذا ما أنت أو دتك ومدك سكوك لهاي هذه لا سمي محلها إن سميان والدينتي يوم مجتمع يكون حجوجة ننكا مواهبتيس
mise maskaxdiis inaa fikirkoo la imaaday wax inaa laga soo qaadaninbo fikirka soconaya soo ah inaa la liido la dhaho fikirka soconaya maahan mise wax saan ah waaye mise inaa loo waa qarash badan ku baxay mise waa dadkan wax ma ka bedeli kartid qofka inaa la dhaho ima inuu ahaado waa qof da'yar 10 jir inuu yahay mise 20 jir hadduu yahay taa waa mawduuc kala gooni ah laakiinse total ahaan maxaa yani maanta gawiis ma kala soo koobo maxaa laga qaban karaa inta su-aasha si fiican u fahmay قطر المواهب والإحباط النفسي إن عنقي مواهبتي سيلدلو إن كده من إحباط نفسي أو كده عصقي ومارت مرالك اللي جتشبيه هذا في الصومالية إن خلي عن كثير إنه نعى تربوي عن كثير إنه إن هذا حلقة ما دام إنه عاسية خصيصه صح إن وظاهرة جرتورت وظاهرة تاجونوي إن عنقي لو صمية مواهبته dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku kala duwan nin walbana ilaahay subxaanahu wa tacaala fikir gooni ah iyo aqli gooni ah iyo maskax gooni ah buu ku abuuray macquul ma ahan marka suurtagalna ma ahan ninka waalidka ahna inuu ku fakara ma ahan ninka tarbawiga ah inuu ku fakara ma ahan qofka kale ee mujtamaca ka tirsan inuu ku fakara ma ahan in dadkani ama carruurtani ama ardaydani wax baranayso hal wado in la wada marsiiyo bilmacnaa si kale haddaan u dhigo oo soo dhaweeyo takhasuskooda maalan hal xaba laga dhigo هل تخصص مثلا إلا وظيفي معقول معها منطق معها لأن تخصصكو وخضوع عيا مواهبته أرض يقول لي هي مارتي يو بعد كذي سؤال سقول شعلي هي بيكون حرام تاعي أنا يوم مركز الصومالية هان ظاهرة وحكتها جنت هاي وحارمنا المهنة يعرضي ذا النظر كل جودنا كده جنو هل وضوء تخصصي أنا وضع مرينا مثلا أتذكر يعني حوار دراسية بنسميه مركا عينة الدراسة تقريبا 400 أرض تقريبا عن سؤالات كثيرة ودي مركا وهذه مرحلة تفسير خصوصا نعم صراحة مثل سؤال ودي مركا حنقول محارة أنا المستقبل كنقول أنا مركز كهلا إن عتر تعليمي جاي صح أنا مستقبل محارة أنا كنت تخصصت يعني أرضي سؤال شو ودينا هي كوا حلاقي مني كتيران إن waxaan marxaladan hoose loo yaqaan nasriga loo yaqaan ama wanka iyo wixii la midka mid walba wuxuu ku leeyahay waxaan rabaa inaan noqdo dabiib yani dhakhtarna noqdo boqolkiiba 95 dhakhtar dalbay waxay qaateen dhakhtarnimo ay qaateen ana waan fakiray marka cunugan dhahay yani maanta waxaan rabaa inaan qaato dhakhtarnimo rabaa inaan qaato waa galas 1 ma garan karo fikirkiisa mana isticaabi karo تخصص طبية تخصص إنجنيرية تخصص شرعية واحد دحية واحد منفعة بدن واحد كل دوين ما يستعابي كرو مع ذلك وحكون فكرة يا أسوأ جلاسوانا إنه النقضة تختار ضبيب إنه النقضة نعم معنى مركز سؤال بن سويدي عنق فكرة حوك كاني من أين اكتسب هذه الفكرة وين سويدية صح حوك كسبضي نعم وحاول قاعدين وكسبضي البيئة المحيطة البيئة المحيطة وحكوك والدينته ككسبضي يعني waxa laga yaabaa meel habeen walba markuu guriga tago hooyadii iyo aabiyey waxay ku leeyihiin waxaan rabnaa inaan noqoto dhakhtar inaan noqoto ma fiirinayo waalidka mana eegahayo cunugan maxaa u habboon muxuu ka bixi karaa muxuu maaragtay la jaan qaadi karaa ma fiirinayo mana eegahayo waxa laga yaabaa marka cunugani haddii majaal kale uu ku takhasusi lahaa ama lagu tirtirsiin lahaa inuu majaal kale ku takhasuso inuu ibdaac ku samayn lahaa laakiin maadaama waalidka uu meeshan ku riixay halkaas inuu sheegaa inuusan waxba ibdaac inuusan ka keenin صح maadaama hadii mawaahibtiisa wixii ay la jaan qaadi karin marka in ardaygii mawaahibtiisa la dilay xagga tarbiya ahaan iyo xagga tacliimi ahaan waa arrin inta badan waalidiinta ee daahira ah oo taagan way dadku laba sano macquul ma ahan qofkii hadii la yiraahdo hal takhasus ama hal majaal ha ku socdo oo wax ku barta hadii la yiraahdo ardayga shakhsiyan asaga naftiisu waxay ku keenaysaa dhibaato ku keenaysaa oo fikir kuma keenayo oo waxba kuma soo kordhinayo oo naftiisa uga faa'iideysanayo waayo ilaahay ma abuurin i'malu fa kullu muyassar li'amali lima khulqa in ka soo dacdisku hawla kale xagga ijtimaaci ahaana nafsiday ku keenaysaa annaga waxaan u baahanahay ummad wadato takhasusaad mukhtalifa oo kala duwan wadato si qof walba aan uga faa'iideysano mashruuciisa goonida ah aan uga faa'iideysano
dhinaca kalena mafsado way ku keentay oo waxay kale mafsado kaga jirtaa culum laga yaabi lahaa inay mujtamaca ay wax tari lahayd ama annaga Soomaali haddaan nahay ay waxna tari lahayd oo laga yaabi lahayd inay ka qayb qaadan lahayd kor u kaca annaga yaa meesha ka baxday مثلا تخصصاتka jaamacada oo kale hadda markaa dhigtid fiir sidoo kale adigaba Cumar baa tahay waad fiirin kartaa ardayda jaamacada dhigata fiiri kulligood takhasuskooda eeg business oo badini business iyo dibbiga oo iska mid engineer mar aragto waa macquul meesha marka waxa ka baxay wixii loo yaqaan al-culum al-insaniya oo kale مثلا علم التاريخ علم النفس يعني علومتي كقيب قادن لهيد فكرك نعم لأن علم الطبي والعلم هندسة انت علم الطبي نفسك سداد حتى انه حنا اكسا كل يعني جنرال دكتور انيهن بس waxa macaan leen صح ما تختار ilka mehelaysid تختار inda mehelaysid oo Soomaali fiican تختار maanta lafaha ah oo Soomaali la amaana mehelaysid تختار maanta jildiga maakino skinka wax mehelaysid waxyaalo fara badan aad helay oo muhiimadan ah ummadda Soomaaliyeed maanta ka dhiban tahay fa waxa laga inuu fahamsanay waxaan waxay ma loo fiirinayo takhasusaadka maxaa ummadda manfac u ah ummadda maxaa manfac u ah lama fiirinayo waxa loo fiirinayaa hawlo kale iyo ama maanta wax lagu yaray helaa iyo dabcan daahira arrin keentay baa jirto oo shirkado raasamaaliga loo yaqaano yaa inta badan takhasusaadka ayaga ay u arkayeen in dhaqaalahoodu horumarin karo bay suuqa ku soo daadiyaan waa arrin la og yahay way hadda ima khusayso oo halkaas ay mushkilada ka socotaa laakiin hadda annagu shirkadu waa nooc mu'amara way adduunka oo dhan bay ka jirtaa oo mar adduunka inkastoo ay reer galbeedka marar badan ay ka xoreeyeen oo ayaga takhasusaadkooda ay ka dhigeen majaalaad mukhtalifa khaasatan علومته لو يقان علوم الإنسانية وهذا إذا حضارة سمينيس. أوكي أيضا تاتا هذا ما أنت كين سو مجوجني وحا أكيسا جامعين فقدنا أو تكتالو جامعين كان علوم كلا دون أو أدو كلا دون على وقت كتار. dadka wadanka u dhashayna aad u bartaan culuum meel walba aad tagtid at least wax cilmi qaadayta ama takhasus qaadayta inaad heshid kulliyooyinka hal jaamac mislo jaamac kala dhigto ayadoo tahay waa la bartaa laakiin way adagtaa inaad heshid nin Soomaali cilmiga barto haddoo soo bartaa ninka waxa agsa cilmi badanaankiis kuma falaahay wax kale oo gala dhexda ugu dhaafaa asoo cilmi loo baahan yahay dhankaas wax kama fiirinayo فتاس مجتمع ما سامين كويش مس أصلا نفسك فكرك شخصي أها أصلا فكرك الشخصي سامين وكل هذا مجتمع سامين مجتمع سامين وكل هذا هي وحسامين أقول هذا هي علم كانت صابرتي مرة بدنا وحلاقيها مجتمع كركوعسي وسنقيب كقاعدين ومجتمع هذا وحيكون غني سامركا مكان كيقولوا وفارق وبناي هي إلى هذا لما أودين عيد أود مرهن نعم أذيك الربنا أود أذيك أنا ضاو مرتين نعم وتاهد مشكلة إنه كينيسا adiga shakhsiyan dhibay ku keenaysaa oo laba siba dhibay kaga keenaysaa kow waxaan aad baranayso umaadan fiirinin maxaad ku soo kordhin kartaa laana umaadan ictibaarinin mawaahibtaada iyo cuquushaada iyo aqoontaada kale maadan fiirinin صح bay'adi meesha aad ku dhax noolayd baa waxay kugu samaysay in siyaaq ayadaa ku idaareysay ayadaa hoggaan kugu qabatay kadibna ayadaa meesha kugu tuurtay oo dhibaato kugu keenaysaa waxa kale dhibaato kugu keenaysaa haddii dadka mutakhasisiinta ay hal meel ku wada ururaan hadhow majaalka waa la iskugu imaanaya xagga shaqadii oo waxaa imaanayso in dadka ay shaqo waayeen laana waxaa weeye kan takhasuska adiga aad wato wataa kana u wataa kana u wataa kana u wataa kana u wataa famidku mid dhaamo lama gaari karo idan waxaa weeye hadhow shaqa la'aan baa meesha ka imaanayso daahiro kale waxaa kasoo boodaysa oo bidaala badaala shaqa la'aan yaa kasoo baxayso taana idan waxa weeye adiga dhib ku keenaysa inaad shaqo weydii kugu noqonaysaa waayo waxa weeye qofka wax baranayo ama takhasus ka sameeynayo waxyaabaha lagu taliyo ama ku fiican ee wanaagsan waxa weeye inuu marar badan uu fiiriyo ama uu eego meelaha nudrada ee lagu yariyahay naam meelaha lagu yariyahay ba inta badan la fiirsadaa Soomaali laakiin dhakas ma fiiriso Soomaali laakiin ma fiiriso Soomaali ma fiiriso yani wuxuu sugaa wadadaas qof kale inuu jeexo kadib inuu ka dawda galo mushkilo way marka mushkilo waxa marka arkaysi lagu daadanayo lagu arkaysi waxa weeye ninka kale u fiirsanayo naam marka taasna waxa weeye adiga dhibaato ku keenaysa shaqo ma helaysid midda kale waxa weeye waxba kuma soo kordhinayso waayo maadan fiirin fikirkaada aqoontaada iyo aqligaada iyo mawaahibtaada ilaahay ku abuuray maadan u eegin mujtamacna dhib bay ku keenaysaa oo makaankii la rabay inaad mujtamacada wax bartay mujtamacna waxba ku qaybsan yahay Soomaa ninka dukaanka joogo inuu alaabta noo keeno oo rooga noo keeno oo dariisada noo keeno oo qamiisada noo keeno iyo noogu xisaabsan yahay adiga inaad wax barato oo wax soo kordhisan noogu xisaabtanta Soomaa waxba ku xisaabsan yahay ninka wax barahay dadka wuxuu ku xisaabsan yahay inuu dadka wax baro Soomaa adiga marka wax baranayay hadii majaalkaadii
wixii annaga naanfici lahaa mee wax kale aad noo keento macnaheedu waxaa weeye majaalkii iyo meeshaan kugu ogeyn waxba maa soo kori waad ka gaabisay marka taasna waxaa weeye waa dhibaato mujtamaca maaragtay keentay ay haysato ustaad aadam ustaad ibraahim aad iyo آسف horta موضوعك كان ليش مشى عادي هذا ومعاه هل ساعة واحد وسعودي ودوات كهالكي ساعة وانجع على له ناس يوضنوا لكن ما دام وقتي كلا نكون حقيقي وحكي له حاجة جانا إن شاء الله فريد نبصان كثير في عن وموضوع محدد أنا حلك الآن كلنا ساعة يوم حالها سداني حلقة دم بدو إلى هيدمو يكونوا وناكسن إن شاء الله أنا سكوا أجنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزاك الله خير